gaadiidleyda basaska magaalada Laascaanood ee sameeyay shaqo joojin taasoo ka dambeysay kadib markii ay ku soo kordheen gudaha suuqa magaalada Laascaanood gaadiid yar oo iyagu loo yaqaan bajaajta ama tigta kaasoo ay gaadiidleyda basasku markaas ay ka muujiyeen walaac ku aadan in dhaqaale xumo ay soo wajahdo gaadiidkan yar oo isagoo ah mid 6 nafar qaada ayaa si xawli ah u shaqeynaya waxaana qaar ka mid ah dadweynuhu ay aad u soo dhaweeyeen maadaama gaadiidkan yar uu si toos ah u geenayo qof kasta gurigiisa basaska iyagoo markaas ka dhax shaqeeya gudaha magaalada Laascaanood iyagoo istaan gaar ah leh ayaa dhibaato xoog leh ka soo wajahday gaadiidkan muuqaaladan aad arkaysaan waa kuwa ka mid ah gaadiidkan yar oo soo ay tahay markii ugu horeysay oo ka shaqeeyo gudaha magaalada Laascaanood dadweynaha ku dhaqan magaalada Laascaanood ayaa iyagu ku kala aragti duwan gaadiidkan ku soo kordhay magaalada Laascaanood ee loo yaqaan bajaajta ama tigta taasoo qaar ka mid ah dadweynuhu ay aaminsan yihiin in basasku ay gabeen kaalintii markaas ay dadweynaha ugu shaqeyn lahaayeen kuwaasoo aanay qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Laascaanood aysan u shaqeyn basaskaasi halka dadka qaarkii ay aaminsan yihiin in gaadiidkan yar horseedi doono shilal markaasi ku yimaada taasoo ay walaac ka muujiyeen xilliyada gaadiidkan ay ka dhax gooshay gudaha magaalada inuu sababi karo khataro markaasi dadweynaha ku dhaca Cabdiraxmaan Cali Ducaale Laascaanood